degmada balcad waa degmo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waa degmo istiraatiiji ah isku xirka magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo waliba gobolada dalka Soomaaliya waxaana lagu tilmaamaa deegaanada ay dadka Soomaalidu ay ku faanaan isbedel dhanka nolosha oo ay barbar socdaan tabcashada beeraha dhaqashada xoolaha ayaa sal u ah nolosha dadka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe balcad waxa ay ka mid tahay degmooyinkii uu saameeyay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana degmadu ay caan ay ku tahay wax soo saarka beeraha dhaqashada xoolaha ganacsiga waxaana ku yaala warshadii dharka iyo suufka ee Somali Tex waana hantida qaranka uu leeyahay ayna badbaadiyeen dadka deegaanka taasina waxa ay tusaale cad ay u tahay sida dadka ku dhaqana magaalada qadiimiga ay Balcad ay ugu heelan yihiin badbaadinta hantida lama taabtaanka ah ee uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed burbur iyo dagaal badan kadib xilligan la joogo degmada Balcad waxa ka dhisan maamul ay raali ay ka yihiin dadka deegaanka nolosha ayaa dib u soo laabanaysa dadkuna waxa ay dib ay ugu laabanayaan tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha waana mid suura gelisay in dadka deegaanku ay la jaan qaadaan nolosha ku dhisan wax soo saarka arrinkan ayaa waxa ay ka timid markii maamulka degmada ay hirgeliyeen biixireen ama kili ay dadka beeralaydu ay uga faa'iideystaan waraabka beeraha iyo xoolaha maxamuud maxamed sanay waa gudoomiyaha degmada Balcad kanaalkan oo ah kanaalka wadnaha u ah degmada Balcad waraabkeeda oo kanaalka mashruuca biixireenka ah sidaad arkaysiin kanaalku wuxuu ahay muddadii la soo dhaafay si aad iyo aad u qaribnay oo dayactir uga baahnay falillahi alxamd hadda waxaan ku sameynay dayactir oo maamulka iskiisa marka wax badan oo badan aan hay'adda FAO aan wax badan codsiyo u sameynay oo isdaba joog waraaqada u qornay jawaab aan ka weynay maamulka uu isxilqaamay asaga ayaa dayactirkan sameeyay maamulka aad arkaysiin sida hadda u jeedin muxuu ahay biyihii si habsamihay ugu socdaan beeraleydina waraabkooda ay wataan dadkana himidoodii iyo muxuu ahay niyadoodii way soo noolaatay hadda ilaahay xamdigiisa roobna wuu noo bilowday waxaa iskaashaday markii anagoo kanaalkeena dayactirnay iyadoo xilligii la galay iyadoo dadka marka waxay qabaan niyad sami iyo waxay ku dhaqaaqeen howlahooda beerashada dhulkooda dalagooda inay beertaan waxaan rajaynaynaa marka in haddii ilaahay yiraaho laga bixi doono ciriiriga biyo la'aaneed hore noo hayo haddii ilaahay yiraahdo iyaga faa'iideysanaya marka kanaalkan waxaa ka faa'iideystaan kanaalkan wuxuu waraabiyaa in ka badan 8 kilomitir ayaa hadda anaga dayactirnay wuxuu dhirkiisana waa ilaa 10 ilaa 15 kilomitir oo laakiin ana hadda waxaan dayactirnay 8 kilomitir oo kamida anagoo dayactirka sii wadno oo weli noo gabagaboon ayaa roobka noo imaaday maadaama uu roobka imaaday marka biyaha la soo fasax hadii biyaha la soo fasax waxaan ku qasbanahay inaa hakino howshii hadda dayactirka ahayd waxaa ka faa'iideysata marka 8 kilomitir
mitir inta dhul beereed ku jiri karta waa garan kartaa oo asaga naftiisa faracyo sii leeyahay oo yaryar oo ka leexanayo marka dadka ka faa'iideysay oo 8 ka baxsan dadka ka faa'iideysay marka waa nambarka ugu badan ee degmada Balcad ku nool dadka xoolo dhaqatada ah iyo waliba beeralayda ayaa aad ula dhacsan biyo xireenkani waxayna sheegeen in caqabado badan oo haysatay haatan ay ka gudbeen dalka noola dayactiray waa alxamdulillah biyaha waa nimcaysan ilaaha loo gargaar haddana waa fiican alxamdulillah roobna waa hel ka war marka hore dhibaatada qabteen si aad ah u dhibaataysnayno xoolaha waa naga oonay biyinta beeraha kulli waa dhib qabnay haddana ilaaha loo gargaar waa nimcaysanahay ilaaha xamdigiisa marka ka waran xoolihii markii hore biyo la'aanta hay jirtay dhibaatooyinka kala kulmi jirteen maxaa ka mid ahaa waxaa kala mid ahay dhibaato oo mataqaanaa alle anaka iyo iyakaba aan isku wada fool xunnahay haddana alxamdulillah shukru waa nimcaysanahay ilaaha noo gargaaro sida hore mani inkastoo dadka deegaanku ay yihiin dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay beeraha haddana waa lagama maarmaan in dhalaankoodu ay helaan waxbarasho degmada Balcad waxaa ku yaala iskuulo fara ku tiris ah kuwaasoo aan gaarsiisanayn sidii laga doonayay iskuulada waxaa markani degmada ka socda dhismo iskuul kaasoo loogu talagalay inay wax ay ku bartaan ardayda baranaysa dugsiyada hoose dhexe iyo sare waana mid ka mid ah mashaariicda uu maamulka uu ka wado degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaana waa iskuulka dugsiga hoose dhexe sare degmada Balcad oo nasiib u yeeshay maamulka aan hormuud ku ah markii aan nagmaday ka dambo in ay degmada laga hirgeliyo iyadoo ay iskuulka ay dhisayso hay'adda Islamic Relief ay noogu jaarday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxaan marka anaga aad iyo aad uga saacidnay dhanka in aan ku wareejino oo siino dhulkan baaxadiisa arkaysiin oo aan la tashirin oo ay ka faa'iideysan doonaan arday aad iyo aad u fara badan oo ka koobnaa doono 21 fasal oo waaweyn oo ka koobnaa doono iyo garoon ciyaareed iyo haddii alla ku run yahay meelihii ay madaxda markay imaanayso lagu soo dhaweyn lahay oo aad iyo aad iskuullada casriga oo hadda la dhisa in uu la mid noqdo aan rajaynin haddii ilaahay yidhaha sidaa arkaysiina shaqadiisa ay gabagaba joogto dadka ka faa'iidaysanaya waxa waaye degmada meesha ay ku soo baahday waayo oo iskuul la'aanta la aheeday iskuulka wuxuu jiraa degmada salka u dambeeya oo buundada iyo muxuu ahaye laamiga eegdiisa oo jira meeshaana waa dadkii meesha ay ku soo faafayeen ilaa 30 sano ugu dambeysay iskuulna aanan lahaynin marka sidaas awgeed meeshaana u doornay waana meel istaraatiiji u ah marka loo fiiriyo deegaanka qaabka uu socdo haddii ilaahay